casharka waxaan ku dhigan doonaa jajabiyo isugu jira isugeyn iyo kala goyn oo hooseedu kala duwan yahay. hore waxaanu casharadii hore ugu soo aragnay jajabiyo la isugeynayo oo hooseedu kala duwan yahay, sidoo kale jajabiyo la kala goynayo oo hooseedu kala duwan yahay. maanta waan isku dhexgelin doonaa isugeyntii iyo kala goyntiiba hooseeyaduna waa kala duwanaanaya. marka waxaanu raadin doonaa sideen hore usoo aragnay dhufsanayaraha. haddaad aragto hooseeyadu kala duwan dhufsanayaraha la soo baxaysaa, kabacdi baad processkii aynu raaci jirnay aad kaga shaqaynaysaa. tusaalayaashan labada tusaaleynu eegi doonaa oo ku fahmi doonaa. tusaalaha koobaad haddaynu eegno, saddexdan jajab ayay labada hore la isu geynayo ka dambana laga jarayo ayaynu eegi doonaa. jajabka koobaad 4 loo qaybiyey 5 weeye, oo loo geeyey jajabka 1 loo qaybiyey 3 oo laga jaray jajabka 1 loo qaybiyey 6. marka saddexda hooseeyaba way kala duwan yihiin. dhufsanayaray baan raadinaynaa. saddexda hooseeyba soo qor. marka leenkii baad jeexaysaa, habkii leenka la jaray fudud ma kaga shaqaynaa. marka saddexdan labada dambe wax wadaaga 3 iyo 6 3 way wadaagaan. 3 ugu qayb 3 waa 1, 3 loo qayb 6 waa 2, 5 lama wadaagto 5 iskala soo daadig. saddexdan wax ma wadaaga mid kasta gaarkeeda ugu qayb 5 gaarkeeda ugu qayb 6 ugu qayb waa 1, 2 gaarkeeda ugu qayb 2 ugu qayb waa 1. marka saddexda mar haddii hal soo baxaan inta koona isku soo dhufsanayaa 3 5 ku dhufo 5 2 2 ku dhufo 30. marka dhufsanayaraha ay wadaagaan wuxuu noqonayaa waa soo gaabsanayaa dhufsanayar wadaagaan 30. marka sidaan samayn jirnay saddexda hooseeyaba dhufsanayaraha bay ku madaynay oo 30. marka 30 dhufsanayaraha baad qoraysaa. dhufsanayaraha 30 u qayb jajabka hooseeyaha koobaad waa 6 4 ku dhufo 24. marka 24 badalka ay dhiganaysaa. calaamadii ku xigtay ee soo qaado waa plus. 30 ugu qayb 3 waa 10, 10 hal ku dhufo waa 10kii uun. marka calaamadii baad iyadana idin soo qaadaysa ku xigta minus baa ku xigta. 30 ugu qayb 6 waa 5, 5 hal ku dhufo waa 5tii uun. marka labada hore isku soo geynaya 24 iyo 10 baad soo geynaysaa. marka waa 34. ka dambana waad ka jaraysaa -5 ka ah. hooseeyaha dhufsanayaraha 30 waad iskala soo daadegaysaa. marka labadan baan kala jarayaa. 34 ka jar waa 29. marka sareeyay wuxuu soo baxay 29. hooseeyahana waad iskala soo daadegaysaa 30 ka ah. halkaas ayaynu kaga tegaynaa tusaalahan. tusaalaha ku xiga ee ku dambeeya ayaynu eegaynaa labaad. saddexdan jajab labada hore la isu geynayo ka dambana laga jarayo. sidii tii hore oo kale baan uga shaqaynaynaa. jajabka koobaad soo qayb 2 loo qaybiyey 3 loo geeyey jajabka 1 loo qaybiyey 4 oo laga jaray jajabka 5 loo qaybiyey 6. maadaama saddexdaba ay kala duwan yihiin, saddexdaba dhufsanayarooda raadinaysaa waa 3 iyo 4 iyo 6. saddexda hooseeyaba dhufsanayarahoodan raadinaynaa. marka maxay wadaagaan? labadiiba wax wadaaga. 4 iyo 3 ma wadaaga. 3 iyo 6 ba wax wadaaga. 3 bay wadaagayaan. 3 ugu qayb waa 1, 3 4 ugu qayb ma qaybsanaysaa iskala soo daadeg 4. 3 6 ugu qaybi waa 2. labadani maxay wadaagaan? 2 bay wadaagaan. 2 igu saar 2 4 ugu qayb waa 2, 2na 2 ugu qayb waa 1. labadan iyadana labadeed ugu qaybi 2 ugu qayb waa 1. sahal ugu soo baxdo. saddexda mar haddii hal soo baxeen inta koona isku soo dhufsanaya. marka 3 2 ku dhufo waa 6, 2 kale ku sii dhufo waa 12. marka dhufsanayaraha wadaagaan waxay u noqday dhufsanayaraha ay wadaagaan 12 buu noqday. marka saddexda hooseeyaba dhufsanayaraha wadaagayaan waa 12. 12kii baan qoranayaa. 12kii baan hooseeyaha koobaad u qaybinayaa waa 4. 4 baan 2 ku dhufanaya waa 8. 8 baad qoraysaa. calaamadii soo qaad plus weeye. 12 4 u qayb waa 3, 3 hal ku dhufo waa 3tii uun. 3 soo qor. calaamadii ku xigtay soo qaad waa minus. haddaan 12 baan 6 u qaybinayaa waa 2, 2 5 ku dhufo waa 10. marka waxaan samaynayaa labada hore soo geynayaa 8 iyo 3 waa 11. marka dambe 10 ka jaraya. marka labada soo geey waa 11. waxaan ka jarayaa -10. hooseeyaha soo daadeg dhufsanayaraha 12
sarreeya markaa ay soo kala jar 12 ka jar waa hal sarreeya hal buu soo baxay hooseeyana dhufsanayarihii 12 waan iskala soo taagayaa halkaas ma intaan kaga tagaynaa عشرة waxaan ku dhigan doonaa isugeynta iyo kala goynta jajab dhafan ama mixed fraction maanta waxaan eegi doonaa sida jajabka dhafan la isugu geeyo iyo sida loo kala gooyo markaynu jajab dhafan aynu doonayno inaan isu geyno ama aynu kala goyno marka hore waynu rognaa jajab maqumane ka baad waynu processkii maray doonaa hadii hooseeyadu kala duwan yahay aynu dhufsanayra raadinaynaa marka qaabkii ma uga shaqeyn doonaa aynu arki jirnay tusaalayaasha baynu ku eegi doonaa tusaalaha koobaad labada jajab dhafane ayaynu isu geynaynaa marka hore waa la soo wareegayaa horgalo waa 3 iyo jajabka hal loo qaybiyay 5 ayaa waxaan u geynayaa horgalaha 4 iyo jajabka 2 loo qaybiyay 3 ayaan isu geynayaa marka hore jajab maqumana u bedelayaa saan ugu bedeli jirnay 5 bad ku dhufanaysaa 3 waa 15 halka waa 16 hooseeyana ila soo daadajii 5 علامته هو بلاس يدا لشو تاتك صدح يقول فافر ولا بيت ولا بوكي وافريا طبعا سريو افريا طبعا نقضي هوسيان واتسكلي سو تاتك يساوي صدح هوسيد وكردويه هي مركات في سنه يرو انغا شادين جيرني لبدان تروح مو وداغان 5 iyo 3 labadan tiro marka mid kastaba gaarkeeda ugu qaybinaysa 5 gaarkeeda ugu qayb waa hal 3 gaarkeeda ugu qaybi iyadana waa hal مرادان waxba wadaagin marka labadan koona soo ku dhufo 15 hooseeyaha oo wadaajinaya 15 bay wadaagayaan marka dhufsanayra ay soo baxay waa 15 marka hooseeyana wadaajinaya 15 bay soo baxay waa halka banti ugu qoraysa marka 15 bar hor kala koobaad qaybni waa 3 ugu dhufo waa 48 calaamadan ay soo qaad pluska 3 qayb waa 5 5 afreet ma ku dhufo waa 7 marka sarreeyaa soo keenaysaa 118 hooseeyahana waa iskala soo taagaysaa 15 ka marka halkaas ayaad kaga tagaysaa jawaabta tusaale labaad ayaan eegayaa labada jajab ayaan kala goynayaa labada jajab dhafane doonayna kala gooyo marka hore waan soo wareegayaa horgaro waa 4 iyo jajab 2 loo qaybiyo 7 ayaan waxaan ka jariyaa horgaro 2 iyo jajabka hal loo qaybiyo 5 marka hore jajab maqumana bedelaya 7 4 ugu dhufo 16 laba igu gee waa 30 kow ah marka 30 sarreeyo noqonayaa hooseeyahana waa iskala soo taagaya 7 calaamada ayaa iyadana haylaaga soo qaado laba igu dhufo 5 waa 10 hal igu 10 hooseeyana iskala soo taagaya waa 5 labada hooseeyo waxba ma wadaagaan marka dhufsanayrohoodu toos baa isugu dhufsanaysaa wuxuu noqonayaa 35 maadaama aan waxba wadaagin toos baa isugu dhufanaysaa dhufsanayrohoodu 35 markuu yahay hooseeyaha wadaagayaan dhufsanayarahan ayuu noqonayaa 35 ka markaas symmetry 37 qayb waa 5 ku dhufo 30 waa 150 marka 150 baa sarreeyo noqday calaamadan ay soo qaadmeen iska 35 qayb waa 7 ugu dhufo 70 marka labada sarreeyadii soo kala jaraysa 157 ka jar waa 73 ayaa sarreeyaan ka dhiganayaa hooseeyana waa iskala soo taagaysaa waa 35 marka halkaas ayaad kaga tagi doontaa عشرة waxaan ku dhigan doonaa isku dhufashada jajabyada ama multiplication of fractions marka doonayso inaad isku dhufato laba jajab tusaale ahaan uma baahnid inaad dhufsanayra raadisid sidaan sameyn jirnay haddaad aragto calaamada isku dhufashada iyadoo dhaxayso waxaad sameynaysaa simply labada sarreeya toos ugu dhufsanaysaa labada hooseeyana toos baad ugu dhufsanaysaa marka jajabka ku soo baxa ayaa jawaabta si fududeynaysaa habka lagu shaqeeyo sida loo si fududeynayaba tusaalayaashan ay ku eegi doonaa tusaalaha koobaad hadaynu eegno labada jajab isku dhufan doonaa jajabka hore soo qabo 2 loo qaybiyay 3 ayaa waxaan ku dhufanayaa jajabka 3 loo qaybiyay 5 sidaan hore soo sheegnay sarreeyaasha toos baynu isugu dhufanaysanaa hooseeyaashana toos baynu isugu dhufanaynaa marka imika labada 3 igu soo dhufo waa 6 sarreeyo wuxuu soo baxay
6 hooseeyahana 3 baan ku dhufanayaa 5 waa 15 marka jawaabta sii fududaynayna jajabkan ay soo baxay marka hore afartan lambarba markuu ku eegayaa 2 iyo 3 iyo 5 iyo 7 laba wada qaybsata may 3 baa wada qaybsata 3 ugu qayb 6 waa 3 waa 2 3 ugu qayb 5 iyo 10 waa 5 labadani waxa ma sii wadaagaan 2 iyo 5 marka jawaabtu waxay soo baxaysaa sareeyuhu 2 ii soo baxaya hooseeyuhuna 5 buu ii soo baxay maadaama la sii fududayn karin halkaas kaga tagaysaa tusaale labaad aynu eegno labada jajab baan isku dhufanaynaa jajabka hore ee soo qaad 2 loo qaybiyay 5 ayaa waxaan ku dhufanayaa jajabka 5 loo qaybiyay 4 sareeyaasha toos baan isku soo dhufanayaa 2 iyo 5 wuxuu soo baxayaa sareeyuhu 10 hooseeyana toos ugu dhufo 5 iyo 4 waa 20 marka 5 iyo 4 isku dhufo marka jawaabta si fududaa labadaba wada qaybsata Soomaa 10 igu qaybi waa 5 20 igu qaybi waa 10 labadan maxay sii wadaagaan 5 bay wadaagaan 5 igu qaybi waa 1 5 10 igu qaybi waa 2 marka lama sii fududayn karo halkaas kaga tagayaa sareeyo 1 buu soo baxay hooseeyuhuna 2 ayuu soo baxay marka halkaas ay jawaabtu ay kugu eeg tahay tusaalaha ku xiga saddexaad aynu eegno labada jajab ayaynu isku dhufsanaynaa jajabka hore soo qabo 5 loo qaybiyay 8 ayaa waxaan ku dhufsanayaa jajabka 3 loo qaybiyay 4 sidaynu hore soo aragnay sareeya toos ka soo dhufso 3 5 iyo 3 soo dhufo waa 15 hooseeyana toos ugu dhufso 8 iyo 4 waa 22 labadan waa la sii fududeeyay jawaabta maxaa wadaaga 2 ma wadaagaan 3 ma wadaagaan 5 ma wadaagaan 7 ma wadaagaan marka labada mar hadaan wax wadaagin halkaas kaga tagaysaa halkaas saas jawaabtu sax ugu noqonaysaa tusaale ku xiga afraad aynu eegno labada jajab bay isku dhufsanaynaa jajabka hore soo qabo 1 loo qaybiyay 5 ayaa waxaan ku dhufanayaa jajabka 1 loo qaybiyay 10 marka sida hore soo aragnay sareeyaasha toos ka soo dhufso 1 iyo 1 ku dhufo waa 1 uun sareeya 1 buu soo baxay hooseeyana toos ugu soo ka dhufo 5 iyo 10 isku dhufo waa 50 jawaabta si fududaa lama sii fududayn karayo halkaas ayay markaa kaga tagaynaa maadaama aanay waxba wadaagin bartaas kaga tagaysaa tusaalaha ku xiga shanaad soo qabo labada jajab baan isku dhufsanayaa jajabka hore 7 loo qaybiyay 20 ayaa waxaan ku dhufsanayaa jajabka 4 loo qaybiyay 5 markaas aan hore soo aragnay sareeyaha inta soo isugu soo dhufanaynaa 7 4 ku dhufo waa 8 ayuu sareeyay soo baxay hooseeyahana 20 iyo 5 baan isku soo dhufsanayaa waa 0 iyo 10 boqol buu soo baxay hooseeyana si fududay labay wadaagaan 2 qaybi waa 4 iyo 10 boqolna 2 qaybi waa 50 haddana labadan maxay sii wadaagaan labay wadaagayaan 2 qayb 4 iyo 10 waa 7 2 qayb 50 waa 5 iyo 20 marka wax kale ma wadaagaan may wax kale ma wadaagaan marka waxaad qoranaysaa jawaabta badib ka qoranaysaa sareeyo wuxuu soo baxay 7 hooseeyana wuxuu soo baxay 5 iyo 20 maadaama aanay waxba wadaagin labadani bartaas ay kaga tagaysaa sidaas ay jawaabtu ay sax ugu tahay casharka waxaan ku dhigan doonaa soo qaybinta jajabiyada ama division of fractions marka laba jajab la soo qaybinayo ama aad aragto laba jajab oo dhaxayso calaamadda soo qaybintu waxaad sameynaysaa calaamadda soo qaybintu waxaad bedelaysaa calaamadda isku dhufashada jajabka dambana waad isweydaanaysaa hooseeyaysa iyo sareeyaysa macnaheedu sareeyina hooseeyada bedelaysaa hooseeyina sareeyada bedelaysaa tusaalayaasha soo socda ayaynu ku sii fahmi doonaa tusaalaha koobaad haddaynu eegno labada jajab ayaynu isu qaybin doonaa jajabka hore waxaa la nasiiyay 4 loo qaybiyay 5 ayaa waxaanu qaybinaynaa jajabka 6 loo qaybiyay 4 marka hore calaamadda isku qaybinta isku dhufashada bedelaya
jajabka dambana way isweydaarinaya hooseeyihiisa iyo sarreeyihiisa. jajabka hore horta ila soo daadeg 4 loo qaybiyey 5 ayaa waxaan ku dhufan u bedelay calaamada jajabkana isweydaari hooseeya sarreeya ka dhig 4 sarreeyana hooseeya ka dhig 6. dabeetana habkiisu ku dhufashadan uga shaqeynaya labada sarreeya waa tilis ku dhufan jiray 4 4 ku dhufo waa 6 iyo 10 labada hooseeyana waa tilis ku dhufan jiray 5 6 ku dhufo waa 30. dabeetana waa sii fududeynaya labada lambar maxay wadaagaan 2 6 2 waa 8 30 2 igu qayb waa 5 iyo 10 labada maxay sii wadaagaan may halkaas kaga tagi doonaa sarreeya 8 buu soo baxay hooseeyana 5 iyo 10 buu soo baxay halkaas ayaa kaga tagaya. tusaale labaad haddaan eegno labada jajab baan soo qaybin doonaa. jajabka hore soo qaad 3 loo qaybiyey 4 ayaa waxaan u qaybinayaa jajabka 11 loo qaybiyey 12. marka calaamadeen bedelinaa isku dhufashada bedelinaa jajabka hore horta soo qaad 3 loo qaybiyey 4 calaamadana isku dhufashada ku bedel jajabka dambana isweydaari hooseeyihiisa 12 ayaa sarreeya noqonaya sarreeyana hooseeya ka dhigaya 11. dabeetana habka isku dhufashada laba sarre isugu kay soo dhufso 3 12 ku dhufo 6 iyo 30 hooseeyana isku soo dhufo 11 marka 4 ku dhufto 4 iyo 40 sii fududay maxay labadan wadaagaan laba ay wadaagaan sidoo kale 4 bay wadaagaan 4 igu qaybi 6 iyo 30 waa 9 4 iyo 40 igu qaybi 4 waa 12. sarreeya wuxuu soo baxay 9 hooseeyana 11 buu soo baxay labadan wax ma wadaagaan marka halkaas kaga tagaya. tusaale saddexaad haddaan eegno labada jajab baan soo qaybin doonaa. jajabka hore waxaa la siiyey 2 loo qaybiyey 5 ayaa waxaan u qaybinayaa jajabka 7 loo qaybiyey 10. calaamadan bedelayaa afka horta jajabka hore soo qaad 2 loo qaybiyey 5 calaamadan isku dhufashay ka dhig jajabkana isweydaari hooseeya waa 10 sarreeya ka dhigayaa sarreeya 7 hooseeya noqonaya. dabeetana labada sarre isugu kay soo dhufso 2 10 ku dhufo 20 labadan hooseeya isugu kay soo dhufso waa 5 iyo 30. labadan maxay wadaagaan 2 ma wadaagaan 5 bay wadaagaan labadaba 5 wada qabsan 5 20 igu qaybi waa 4 5 iyo 30 5 igu qaybi waa 7 labadan wax ma sii wadaagaan marka sarreeya wuxuu soo baxay 4 hooseeyana 7 ayuu soo baxay marka halkaas ayaad kaga tagaysaa. tusaalaha ugu dambeeya afraad haddaan eego labada jajab baan soo qaybinayaa. jajabka hore waxaa la siiyey 13 loo qaybiyey 4 ayaa waxaan u qaybinayaa jajabka 3 loo qaybiyey 4. marka hore jajabka hore ila soo daadeg 13 loo qaybiyey 4 calaamada soo qaybinta isku dhufashay noqonaysaa jajabkana way soo weedaarinayaa hooseeyaha ayuu sarreeya noqonayaa 4 sarreeyana hooseeya noqonayaa 3. dabeetana labada sarreeya soo kay soo dhufso 13 4 ku dhufo waa 250 sarreeya 250 buu noqday hooseeyana soo kay soo dhufso 4 3 ku dhufo waa 200. labada lambar maxay wadaagaan 2 wadaagaan sidoo kale 4 hadad ku eegto 4na way wadaagaan 4 igu qayb 250 waa 13 12 4 igu qaybi waa 3 marka sarreeya wuxuu soo baxay labadan waxa si wadaagaan sarreeya wuxuu soo baxay 13 hooseeyana wuxuu soo baxay 3 maratan waxa wadaagaan halkaas ayaad kaga tagaysaa. maanta casharkeenu halka ayuu nagu joogi doonaa waa inoo casharkan xiga inta ka horeysa. assalaamu calaykum.